Aabbahay wuxuu dhintay anoo uur ku jiro. Hooyadeyna waxay dhimatay anoo 4 bilood jiro. Ayeeyday waayeel ay soo wadatay oo ay korsatay. Ayeeydayna markaan 8 jirana way dhimatay. Nin adeerkay ayaa soo kaxaystay. Adeerkayna kuma tilmaami karo. Maxay ahaydee markuu isoo kaxaystay 8 sano ilaa 10 sano si xun ii dili jiray. Tacdiib fara badan igu haayay, dhibaato fara badan cunug yar u adkeysan karin. Dilka waxaa iga daranaa markaa 10 sano gaaro inuu maxay ahaydee kufsi igu daro. Kufsiga la socdo darajeel dhibaato fara badan. Hataa dilka waa u adkeysanaya laakiin markuu farxumaysta bilaabay uma u adkeysan waayo. Inuu korka iga gubo igu duro maxaa la hayay nusbaaro waxaas korka iga duro. Anigana waxba maana garanayn, waxba maana ogeyn. Ruux la leeyahay waa adeerkaaga oo haddana maxaa la hayay ku farxumaynayo. Dilka hataa macsud waa iska caadi laakiin farxumaysi kufsi igu daray. Haddaad sheegtid haddaan sheegin waaba sheegi lahaaba qof aan u sheegtay haysan lahay isla markaas waa sheegi lahaa. Qofka u sheegana waxay ahayd eedadeyda.